السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليقا وانيقا برواق الدنيا يوتيوب كدنا قد دعوانا سانا وهبلها جيسكا فضلنا هدي اي تايمر كي كوغوري سيدا صابوغا تشانل كيغا سبسكرايب سار سيدو كلا قنباليل كفورا سيدو كلا فيديو لايك غري شير غري ولا وداق أصحابتي قاليقا عاو حيدي وضع برنامج عصب كاسو oo la magac baxay toddobaadkii social media barnaamijka waxaan doonayaa insha Allah in toddobaadkiiba hal mar idin soo daayo taasoo idin ku soo deynayo hadba wixii toddobaadka social media ku dhex jira ama base loogu hadal haynta badan yahay sidoo kale barnaamijyadeeni kare challenge-yadeeni waxaana halkeeni waan nooga sii waday sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa inaad iigu soo ducaysaan mataantaydii laki oo iga xanuunsanaysa iyadana sidoo kale ducada iyo faatixada u soo maray insha Allah taala asxaabtida qaaliga barnaamijkeenan toddobaadkii social media caaw waxaan ku bilaami doonaa arin bariya social media ku dhex jiray waa wiil iyo gabadh mise maama iyo wiil baan dhahaa inaan la yiraahdo khadar iyo maama la yiraahdo fihiima runahaati wad ka wada dheregsantihiin saan filayo waa dad maxaa la yiraahdaa isqaba ama adigu de isqaba bayn oran karnaa sheekadoodu waxay ku bilaamaysaa sida tan inantan iyo inankani wuxuu joogay magaalada Nairobi inantana waxay ku noolad wadanka Ingiriiska ama London hadba saad u taqaanaan kadib waxa dhacday in maxaa la yiraahday aaladdan social media la iska bartay kadib markii la isbartay adigu maxaa la yiraahday waxaan oran karnaa la isjeclaaday waa san lagu yiri inaka kadibna waxa dhacday in markii la isguursaday ay gabadhii damacday inay ninkeeda ka xaysho ay dacwad uga furto halka iyada horta waan idin soo sheeka dhaafay intii aanay isbaran fihiima inay isguursan inanka khadar ayaa waxa jirtay khadar wuxuu macnaha guursaday gabadh Canada joogta gabadhii markuu guursaday ayaa gabadha markasta ilaa waa nin dooftoone markasta halku gabadhiisi ku oran lahaad markastuu la hadlay goormadii imanaysa kulay nin iyo naag la maqande goormadii imanaysa halku ka oran lahaa ayuu markasta wuxuu oran jiray goormadii dhoofinaysa macnaa goormadii dhaxaynaysa gabadhu waxay ahayd gabadh aad iyo aad u caqli badan kadibna waxay tiri adeerde aniga wax kale iimaad guursanay macnaha wax dhigi guursatay sidii aan ku dhoofin lahaa ama aan ku keen lahaa wadanka Canada kadib gabadhii amaro xaasil saasay ku kala tageen kadib san horaba idin ku soo sheegay fihiime isbarteen fihiime isguursadeen kadib markay isguursadeen ayaa fihiime waxay damacday inay safaaradii ku taalay maxaa la yiraahdaa Nairobi ay dacwad uga furto waxa la sheegay oo xogo badan oo aan soo ururinay ay sheegayaan inuu ninkaasi mar walba safaaradda ka dhex ooyi jiray uu oran jiray xaaskayga man doonaya in ay dadkii cadaanka hayaabeen oo fajaceen oo yiraahdeen maxaa la yiraahdaa waxa ninkan ooyiya kadib halkay dadka sanada ama sanad ku qaadata isaga ku qaadatay 6 bilood oo kaliya sheekadu markii halka mareysay inankii la geeyay xaga dibadaha intii aan la geyn ayaa fiimo lagu yiri macnaha qofka marka la dhoofinayo waa in damaanad qaataa sidii yaani iyadu way jeclay waa dumar waa dareemi karaysaa way qalbi jilecsantay kadib waxay sameysay in laba shaqo gasho si ay maxaa la yiraahdaa isagii u damaanad qaado adigu muddo 5 sano meelahaasa waxay ku wada noolaayeen wadanka Ingiriiska ilaa uu ninkii ilbaxay waxaan ku riyo baasaboorkii la siiyay waxaan ku social media ay soo gelisay u deefnaan khayadigu nin rag iska fahan oo waxaan ku riyo wanaag u sameysay wuxuu samaynayo kadib sheekadu markii ay halka mareysay ayaa waxa dhacday baasaboorkii markuu qaatay ninkii caan ka dhigtay meel kasta TV bushaara cali baandaraan daawaday oo wareysanaysa ninkaas uu ooyay hindi baan moodaa ma garateen waxaan ku riyade waxaan loo soo bandhigi jiray jacayl khiyaaliya oo beena oo waxaan ku riyade baasaboora saas uma noo oran karaya saan ka arkayba sheekadoodu imika meel aad iyo aad u xunbay maraysaa heer wuxuu gaaray uu maxaa la yiraahdaa codkii ku wada hadlayeen gabadhii xaaskiisa ahayd inuu maxaa la yiraahdaa bulshada la soo wadaago si uu caan u noqdo bal wax ninka maxay ku tilmaami karnaa anu isma oran kara ninkaas waa nin ragii waxaan oran karaa meel buu kaga dhacay waayo qofkan waa dumar way qalbi jilicsantay macnaha way ku jeclaatay waxa soo abaalay ku gashay
wuxuu sidoo kale inankan iyo inantan way kala weyn yihiin maamada iyo wiilku way kala weyn yihiin markii la weydiiyay su'aalo wuxuu taagay wayga weynto aanu ilmaan rabaa taa xalkeeda waxay ahayd inuu iyadana qabuun iyada u dhiso maadaama ay tahay qof abaalkaas oo dhan u soo gashay gabadh kale oo de yaroo ilmo u dhashana uu iska guursado gabadhiisana isagoo social media ka caabeen uu saa ku qanciyo kale way yeeleed baan filayaa marka ragga Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay maxaa la yiraahdaa hablahooga dhowraan inay qalbigooda ilaaliyaan inay raganimo muujiyaan inaanad gabadh xaaskaaga hadallada isku wada hadasheen social media ay caanimay inaydan maxaa la yiraahdaa ku soo raadinin sidoo kale farxiye kabayare buu yiri way la soo hadashay yadna tiri waxba lama hadlina caanimo igu raadinaya marka ninka khadar waa nin laga qayliyo waa biiga yaabiye laakiin wallahi doqonimaysaasi u tay de gabadh xaaskiisa inuu saaw galo may hayn imka say kasto ay ahaataba wixii way dhaceen nin kasto oo ay daawanaya ama muuqaalkayga gaari doono waxaan kala dardaarmayaa inaanu gabadh niyada ka jabin waayo gabdhuhu way idin dhaleen way idin la dhasheen waana dhali doontaan inaad 100% dhowrtaan oo ilaalisaan oo waa ukunta de hadii dhulka lagu dhifto dhacbay oranaysaa aad ilaalisaan aan 100% idin kula talnaya asxaabteeda qaaliga aadka u quruxda badan leh barnaamijkii caawa intaasaan ku soo xidhayaa barnaamijkeenan toddobaadkii social media-huna waxaan ku riyay halkaas inooga socon doonaan wixii fikradeed qabto iyo waxa doonaysa inaad igu aragto qaybta comment-ka igu reeba aad iyo aad baan idin salaamay meel kastoo adduunyada ka joogtaa ma waxaan idin leeyahay one love